halkani waa stuudiyihii ugu horeeyay ee telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu yeesho ee lagu bilaabo wax soo saarka iyo productionka guud ahaanba telefishinka qaranka laga soo bilaabo wixii ka dambeeyay 2003 waxay Soomaaliland hirgelisay hanaan kale oo bulshada lagaga haqabtirayo siyaasadda hogaamineed iyo horumarineed ee dhinaca warbaahinta dawladda waqtigaasi oo ku koobnayd dhageysiga iyo qoraalka idaacadda radio Hargeysa iyo wargeyskii hore loo oran jiray Maandeeq oo markii dambe ilaa haatan magaciisu yahay wargeyska Dawane afka iyo siyaasadda dawladda ku hadla waxaana saaxadda waqtigaasi soo galay muuqaal baahiyo casriya oo dawladdu ay hirgelisay telefishinkan ayaa meesha ka saaray daawashadii iyo la socodkii TV gaar loo lahaa oo lacag iyo kiraba ku ahaa bulshada qaybaheeda kala duwan daawashadiisu maadaama oo TV-ga qaranku yahay mid bulshadu ay wada leedahay sida ka muuqata magaciisa oo telefishinka qaranka Soomaaliland waxaana loo fududeeyay helista daawashadiisa ee dhinaca frequency-ga iyo dhinacan kale oo ah dhinaca lacag la'aanta bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh magacaygu waa Sidiiq Ismaaciil Axmed madaxa baahimaha gudaha ee TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland baahinta guduhu waxa weeyaan hadaan idin fahansiiyo telefishinka sida loo daawado anteenada yar lagu daawado ee anteenada loo yaqaano oo caasimadda iyo hareeraheeda gaadha 70 kilomitir square qiyaas ahaan telefishinkaas receiver laguma daawado muraayada oo kaliya tad ka helaysaa qofku anteena yar uu gashanaya sidaas la yiraahdo telefishinka gudaha ama local transmission waxa weeyaan Ingiriisi laakiin waa baahinta gudaha Soomaali waxana weeyaan waxa loogu talagalay dadweynuhu inay si free ah u daawadaan oo aan dhish u baahnayn oo receiver u baahnayn oo dhibaato waxyaabo culays dadku oo dhan looga fududeeyo marka waxa la aasaasay telefishinkan la keenay 2005 17 July ayuu hawada galay telefishinkan tijaabo muddo 4 bilood ay tijaabo ku jiray sida dadweynuhu ay xasuustaan TV-gan wuxuu ugu horeeyay kaleer ah oo digital ah oo hawada soo gala oo Soomaaliland ay leedahay bariyo hore waxa jiray TV oo tushuusha meel badan gaarin oo TV-ga space-ka loo jiro kala laakiin kan wuxuu kaga duwanaa in meel badan gaarayay isla markaana uu kaleer ahaa oo la mid ahaa sidii receiver laga daawanayo kale ayuu la mid ahaa baahintiisu ilaa maanta sidoo kale weeye waxaanu ku shaqeynayay wax transmitter kaliya markii la keenay transmitter kaliya iyo dhowr kameradood yar wax yar hawada lagu galiyo kaliya ayay keenan gaaladii looguma talagelin markiiba in shaqo la bilaabo gaaladii waxay yiraahdeen dhigta muddo sanada ay idin yaalo waxaad sameysaan anagu waxaan u keenay qalabkan tijaabo in hawada ku galino kaliya waxaad sameysaan sanad kaydkii ajaladii urursada wixii la siideyn lahaa kadib istuudiyaashii sameysta oo istuudiyaashii wararka barnaamijyada waxa soo dhan sameysta may dhicin habeenkii koobaadba sidii lagu sheegay tijaabadii ay ku socday 6 saacadood waxay dhacday in aanu istuudiyaasha ka soo gurano filmo ruwaayado aanu sii deeyno dadku xasuustaan ruwaayado iyo filmo Mareykan oo ciida ka badan iyo heesa Ethiopian iyo wax walba isku jira dadana fiidiyada waxa macal istuudiyaasha ayaa la recording ka sii deynayna markaan aanan heli recordo waxaan ku bilownay farsamo sidaas oo aanu war jirin oo aanu barnaamijyo jirin tijaabo 4 bilood soconaysay oo saas muddo markii saa u socotay 4 bilood wixii koobaad ee la bilaabo waxay ahayd barnaamijka waxbarashada Maxamed Xuseen Cali wariyo senior Maxamed Xuseen Cali oo bilaabay waxa ku xigay barnaamij lambaal barnaamij la yiraahdo Maxamed Xuseen baa bilaabay isagana muddo markay socotay barnaamijyo kale asaasaan u soo kordhinay warku muddo dheer kadib ayaan warka galnay warka markii ugu horeysay aan sii deeno live ayaan ku sii deeno warka markii ugu horeysay aan galno bartaan fadhiyo ayuu wariyuhu fadhiyay bartaasaan live ku sii deynay baahintuna halkaas ay farsamaduna ahayd kamarada bartaa ay kamaradaas taalay sidaas ay baahinta warka aan ku galnay live cameraman daba taagan ma jirin aniga farsamo yaqaan aha aniga oo studio fadhiyay kamaradana aniga ana fadhiyay wixii qalab la sii deynay wararkan aniga hayay cid kale farsamo yaqaan ma jirin anigu baahinta ku jira baahintii oo toos ah ayuu wariyay soo fadhiistay warkii ana sii daayay Maxamed Xuseen Cali baa galay habeenkii ugu horeysay
war magaalada toos buu warramaya adigina toos baad u siidinaysaa warka toos buu warramay weli uu fadhiya aniguna toos ma jirto macnaha warka imika waa la sii duubaa iyadoo recording baa la sameeyay studio qof farsamo laga sii duubaa ay tamyadii oo la codeeyay ayaa adana la isku daba dhajiya imika computer baa jiro computerada soo baxayo la dhigdhiga bariga baahinta hal computer kaliya tahay computerkaasi computerada yar guriga lagu isticmaalo kala mid aha lixtaalada iyo waxyaabaha yar yar ay marka sii deejiro qaadi karay barnaamijyo iyo warar video muu qaadi karayn memorigiisa marka eegto iyo RAM-kiisa marka eegto marka waxaan ku sii deynaynaa cajaladihii waaweynaa VHS-ka iyo DVD-yadii cajalada kale DV camera ayaan wararka ku sii deynaynaa marka wararkii dibadda iyo kuwii dalkaba inta aan cajalada ku ururiyay ayaan u sii deynayay warka itemka warka wariyihii oo fadhiya ayaa halkan isaguna iska daawanaya halkaas shaashada ku soo jeeda ayuu ka daawanaya warkii halkaas ka codeynaya warkii uu arkayo ayuu codkii sii wadaya ma joojinayo warkii hiilkii markuu galo faahfaahintina uu sii wadaya isla isagii ayuu sii wadayo dhameystiraya haddana kamaradiiba dib ugu soo noqonaysa wariye kale oo ka galayo wariye kale oo cajada ka faahfaahin ma jirto video kaliya taa ugu jira deetana uu toos buu codkiisa u wadanaya wuxuu arkaya sawirka inuu galo uu sii waday codkii haddana waa lagu soo noqonaya itemkii kale haddana bilaabaya habeenkii labaad Xuseen Cabdilaahi Deeqsi ayaa galay labada habeenba TV-gu live ku warramayay wixii ka dambeysay ayaa la yiri warka live ku galna sidoo wararku ay u bataan u dheeraadaan laakiin waxay noqotay tijaabo wanaagsan oo ay ahayd in halka laga sii qaado war aad u qurux badan oo live ah oo bilowna markaa maan haysanin qalab ku filan oo aniga hore u sheegay sidaan ku bilownay in la yiri farsamadiina iyo qalabkiina iyo xiinaba si balaarsada sidaan lagu ma bilaabi karo waa lagu talagalay wariyuhu warku in ismaqlaan farsamayaqaanka oo headphone loo xiro caalamiyan wariyuhu qoraal ka akhriyo waxa la yiraahdaa teleporter uu akhriyo oo kamarada loogu xiro teleporter halka ka akhriyo qoraalkii oo waaweyn kamarada horteeda ee loogu talagalay studio-yaasha caalamiga ka hadla wararka teleporter kaas loogu talagalay wariyuhu warka ka akhriyo maaha warqad yar inuu ka akhriyo waa inuu ismaqlaan oo farsamayaqaanku uu la hadli karo haduu baahin live ku jiro haduu record ku jiro waxa la yiraahdaa talk back baa la yiraahdaa farsamayaqaanka kula hadlay wariyo laakiin ma jawaabayo lama hadlayo waa warkiisa iska wadanaya dhigtu ka maqlaya wixii loo sheego waxaas ama haduu qaldamo wala saxaya waxaas ilaa imkadan ma jiraan waxana weeye waxyaabaha loo baahan yahay in la tadawuro oo la horumaro maanta cilmiga technology uu sii batay wax walba la bedelay kamaradii wax walba la fududeeyay cilmiga uu sii fududaaday qalabkina uu sii jabay ka sii qiimihii bariga hore qaaliga ahaa aan iibsan karayn ma aha wax walba waxay noqdeen wax fudud marka waxa weeyaan tadawur marka waxa weeyaan telefishinkani maanta imka waxa jira TV-gi localka ah ee hore mar buu xumaaday hawada ka baxay muddo 8 bilood buu xumaa aniga hagaajiyay farsamadaas oo ilaahay bariga igu guuleeyay kadib wasiirkii markaa joogay ayaan ku eeday telefishinkan uu naga xumaan karaa mid kale inoo dalab maxamed musaddiiriye ayaa isna ku guuleystay telefishin kale oo weyn oo cusub keenay 3 kilowatt ah halku kii hore ka ahaa 1 kilowatt 1 kilowatt oo lacag badan ku baxday $5 milyan ba ku baxday lacag ciid ka badan ku baxday barigii hore isna wuxuu keenay telefishin kale oo 3 kilowatt oo jaban oo isla dalkii Talyaaniga laga soo iibiyay laba dalkii sameeyay kii hore laga soo iibiyay oo jaban buu soo iibiyay barigii hore Canada laga keenay telefishinka ilaa mashiinkiisa iyo waxba deetan lacag badan $500,000 ku ilaa $1 milyan ku dhow ka baxday madaxweynihii bariga joogay taariikhda kale iyo qalab saddex dhowr kamarado studio iyo wax yar loogu talagalay mixer iyo wax yar oo kooban ayaa lacag badan ku baxday kadib telefishinkii uu keenay maxamed musaddiiriye uu soo iibiyay madaxweynaha hadda talada haya Muuse Biixi Cabdi ayaa bixiyay lacagtiisa iyadoo aan miisaaniyadda wasaaradda aan ku jirin ayuu madaxweynuhu si toos ah u bixiyay telefishinka wasiirkii maxamed musaddiiriye keenay isagoo noo yaala cusub ayaan telefishinkii rakibnay kii hore aan nasinay hawadan gelinay 3 kilowatt buu gaadhay meelo badan baa laga dhageystay ilaa abdaal ilaa maxaa la yiraahdaa meelo badan buu gaadhay xuduuda Itoobiya gudaheeda macala marka muddo kadib agaasimihii guud ee hore wasaaradda ayaa soo jeediyay in maxamed Yuusuf ayaa soo jeediyay in telefishin ciyaarayno sameeyno oo localkii ah sidaas aan ku sameeyay telefishinka ciyaaraha
telefishan marka iminka TV-gu waa laba baahinood oo kala duwan oo gudaha caasimada iyo hareeraheeda laga daawado labadaas wax kale TV-ga ciyaaraha iyo TV-ga localka hore ee Soomaaliga ay wararka iyo barnaamijyada ay kala soconayaan kan ciyaaro marka sidaas uu ku soo biiray waa transmitterkii labaad ee loogu talagalay marka inuu back up ahaado kii xumaaday uu bedelo back up ahaado ayaan looga dhigay telefishanka ciyaaraha Sidiq Ismaaciil Axmed madaxa istuudiyaasha telefishanka qaranka gaar qaybta localka bal waxaad ka warantaa laba arrimood oo suuqa ay dari doonto marka TV-gaas ugu horeeyay uu hawada galay dadku siday ula qabsadeen uga falceliyeen iyo imika haatan waqtigan ciyaarihiin laftigoodii meesha ku soo darteen siday ula socdaan dadku beriga si uga falceliyeen TV may arag TV muraayada kaliya inta la iska shito kale saa soo baxayo wiligeed hargeysa kama dhicin kaleerna saa waadix oo ah dabeetana waxaan sidii uga falceliyay waxay noqotay in muraayadihii magaalada hargeysa laga waayay muraayadaha la iibsaday shaashadaha oo kii loo galo oo waxaan ku yiri iyo anteenada yar yar ee la gashado fi anteena loo yaqaano meel walba ay meheradaha laga soo duubay video maalintaas oo suuqyada sida ay dadku feedback uga bixinayeen farxadda umada ka muuqatay iyo sida ugu faraxsanaayeen maad maleeynahay qofka kamarada laga duubo waxaan ku yiri TV ayaan ka soo baxaya waxa uu ahayd wax dad marka dhashay oo kale noqon waayo waxaan hore u jirin ba ay arkeen TV meel walba lagu daawanayo guriga hortiisa lagu daawanayo meherada lagu daawanayo banaanka la iska daawanayo kadib 6 bilood kadib markii la aasaasay World Cup-kii Jarmalka lagu qabtay waa soo galay 2006 ciyaarihii adduunka Jarmalka lagu qabtay 2006 ayaa soo galay waxay noqotay in geel walba saa loogu daawanayo ciyaarihii oo dhulka banaanada markayso deeda lagu daawanayo meherada horta lagu daawanayo dad banaanka wala soo baxayo dhulka dhigtay shaashada daawanaya waxa soo berigi hore aan suura gali jirin dadkuna si soo dhaweeyeen si aad iyo aad u soo dhaweeyeen waxaad ka warantaa mar haday dadkii saa ugu xidhmeen maxay ku soo noqon jiray hadii habeen hawada laga waayo tusaale hadii habeen hawada laga waayo dadkuba magaaladii oo kadinka hor taagan subaxii ay darkiis kadinka wasaaradda horteed iyadoo dadkiisa soo tuban yihiin TV maxaa ku dhacay TV maxaa telefoonadu ma afar leen iyo waxba u yaalayo ma kala go'ayn hadii mirar yar cilad dhacdo laakiin berigi hore وعصبان مدرير وحيلاد كما دحين تيفيga وحيلاد كما دحين mar cod yar amsay wax yar mooyaano ku foobane waxaylaad kuma dhicin muddadeer waxaylaad kuma dhicin imka waxyaabaha idin qorshaysanaa rajadina ku jiraan waxa kamidsta imka waxaan jecelahay inaan channelada sii badino oo imka ka ciyaarahan ku darnayna aad bay imka dadku u jecleysteen waxay noqdeen in ay dadka ciyaarihii ka heli karaan halkan warkii ka daawan karaan muraayadii ay iska bedeli karaan hadana ciyaarihii ay ka heli karaan World Cup-kii imka qadar lagu qabtay u dambeysay magaalada si loogu daawanayay hargeysa wadiyaabisay dadka guryahoodii iyo meheradahoodii iyo meeshii joogan bay ka helayeen ciyaarihii oo kaleera oo aan lacag ka bixinayno si bilaash ay ku daawanayaan sideedaan jecelnahay inaan qaar entertainment madadaalo soo kordhino oo kan wararka ay dadku ku daawanayaan laga nasiyo mar ciyaarihii qaar madadaalada doonayaan kuwii diinta doonaya ay barnaamijyo diiniyo toosa ay ka helaan channel diiniya kuwii doonaya ciyaarihii ciyaalkii yaryaraay ma awlada doonaya inay qaar ka helaan marka mustaqbalka waxaan jecelahay channel badan oo sidaas oo kaliya oo waliba caasimada aan ku koobnayna gobolladan wada gaaraya insha Allah taala sida noo qorshaysan sideen qaar kolba si u soo galaan mobilada oo kale ma laga helaa abiska oo kale ciyaarihii si loo daawan karo abiska ma ciyaaraha laga helo maadaama ciyaarihiin wax qaaliyaho ay diyada lacag badan ka soo saarto oo ma ogola abiska shirkaduhu ma ogola in abiska ciyaara la geliyo waayo ciyaarta la xidhayaa ciyaarta la abiska lama ogola dadkii sidiqo kula soo shaqeeyeen furka ahaa ee dadaalka faraha badan aad soo wada marteen yaad ka xusi kartaa dadkii aad buu tira badan yihiin wallahi waxaan ku leeyahay wadaan hebel u yiraahdo waan kale ilaabiya waxa weeyaan horta TV-gan waxa weeyaan dad yar oo tira yar baan bariga hore ku aasaasnay waxa weeyaan Xasan Shuguri Ahmed Jaamac Faarax Maxamed Aqli Ahmed Cabdiraxmaan Heelo Baalid Cabdilaahi Abdi Almis Ahmed maxaa la yiraahdaa rag aad buu tira badnaayeen Ahmed Abiib ni loo jiray marka xasoo rag way fara badnaa markii dambe la soo badanayay moogta Xasan Maxamed Yuusuf iyo waxa raggii ugu horeysay ka hadlay meesha Shaadiye Maxamed Rooble iyo Sakariya Cabdi Surub dadkii ugu horeeyay TV-ga ka hadlay ee dadka u sheega Xasan Maxamed TV-ga si loo sii shaqeynaayo dadka tusayay ayuu kamid ahaa
حسين عبد الله ديقسي رجوع هناك وهريك شقين محمد حسين علي رجوع هناك شقين يبوها ماشي marka raggaasi waxa ahaan rag team waxay ahaayeen bilowgii marxalad adag soo maray dad adag bay ahaan qofku waliba 10 shaqo qabanay anigu waxaan sameyn jiray inta aan subaxii kamarada qaataan soo duubo ayaan codeyn jiray halkan fadhiisan jiray markaasaan haddana barnaamijkii aan edit galaysan jiray aan sameyn jiray haddana baahinta fadhiisan jiray habeenkii aan sii deynay saddex waxaan isku galay hawlna fura muddo sanada TV-ga markii la aasaasin muddo sanada wax mushaar ma qaadanba 2006 December markii dhamaatay baan la qoray mushaar wali sanad buura mushaar ma qaadan berigii hore anagu idaacada iyo kasoo shaqayn jiray qaybta filimada iyo qaybta internetka oo muddo dhowr sano ka saddex sano kala hore bila mushaar ku soo shaqaynay anigu afarta sano bila mushaar ku shaqayn jiray marka shaqo adag bay ahayd dhabar huro oo aan waxa ahayn laga soo bilaabay maalintii ilaa habeenkii oo dhan soconaysa waa qaranka loo shaqeeyo 10 saacadood ka badan qof 12 saacadood shaqeynaya oo nafura bay ahayd laakiin waxa ay shaqo aan ku faraxsanahay moralka yaga iyo shucuurtayada ayaa waxaan jeclaa taas ay hirgelisay inuu maanta halkan soo gaarsiin maanta 10 qof ka shaqeynayaan horumarkii inta soo stuudiye meesha leedahay inta soo horumar la inta soo television qaybo kala duwan ay kala baxayso alxamdulillah rabbil caalamiin meel fiican bay soo gaadhay maanta waa hagaag dad badan ba meesha ka shaqeynayay oo aad iyo aad u karti badan waana wada gaari karin waana tirada wada gaari karin marka wixii aan ilaabinahay ka raali ahaada mid baan ku daray wiligii leeyma wareysan muddada aan ka shaqeynayay 20 sanadood wiligii leeyma wareysan mana jeclaan in la wareysto ma jeclaan anu waxaan ahaykii kamarada daba taagna dadka wareysan jiray kamaradan waxay la mid tahay qori askari qorigiisa sita oo ku tiraahdo qorigaaga keen deetana kugu qabto marka ma dhici karto wadna qofku uma laha qorigaaga keen kugu qabtay maanta qorigi waxaan rag daahdabiisa iyo kamarada dabadeeda soo taagan mar walba deetana waxa dadku ay daawanayaan ka soo shaqeeyay haday dhaxtaaltay haday waxa taayibin waxa ma in kamarada soo hor istaaga laga ma yaabeen marka dadku haday keerkeerkayga iyo waxa ay hadi kali waayay ay ka yaabaan sida wala socon qorigiisa lagu qabtay ayaan ahayd waa hagaag daawadayaal kaasi waxa uu ahaa Sidiiq Ismaaciil Axmed Saciid nin in badan nafta iyo muxuu hayay waqtigiisaba u soo huray sidii TV-ga localka iyo guud ahaanba TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu soo gaadh lahaa maanta halka uu taagan yahay Sidiiq Ismaaciil Axmed aniga laftigayga waxaan marxaati ka ahay in tiraba dhowr jeer uu ka howlgalay kicinta iyadoo dad badan loogu yeeray inuu isagu noqday qofkii kaliya ee ku guuleysta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland ay u garato waqtiga uu joogay wasiirkii wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta mudane Maxamed Muuse Diiriye oo ku abaal mariyay yaagasmihii Guud Mukhtaar Axmed Cali dadaalkii nafurka ahaa ee uu sameeyay ee uu ku soo celiyay localka ama qaybta daawashada gudaha hawadeedii iyadoo loo taag waayay ama dad fara badan aanay xalkeedii keenin Sidiiq Ismaaciil Axmed nasiibka nagu simay inaanu idin soo gudbino taariikhda uu xambaarsanaa barnaamijkana qayb ayuu ka ahaa aad iyo aad badan mahadsantahay